kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee raadiyo Beerlula. barnaamijka caafimaadka waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabduqaadir Cumar Ibraahim Nadaara, waxaana farsameynaya Maxamed Yuusuf Cabdullaahi. toddobaadkan barnaamijka caafimaadka ee raadiyo Beerlula waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka caafimaad ee uu leeyahay maanduuriyaha sida taabuuga, xashiiska, traamadoolka, tubaakada, sigaarka iyo shiishada. waxaana barnaamijka marti ugu ah Dr. Aadan Cabdullaahi Cilmi oo bartay caafimaadka guud kana mid ah dhaqaatiirta beledweyne. runtii maanduuriyaha markii la yiraahdo waxa uu leeyahay khataro aad u waaweyn. haba si kala khatar badnaado, haba noocyo badnaado, laakiin markii maanduuriyaha la yiraahdo waxa u sawirmaa dadka waxgaradka ah ama dadka aan isticmaalin kafiyo ama dadka isticmaala qudhooda inay yihiin barnaamij khatar ah oo xagga caafimaadka khatar ku ah inuu yahay. runtii markii la yiraahdo caafimaad ahaan maanduuriyaha horta markii la yiraahdo qayb badan uu leeyahay. waxa kamid ah tubaakooyinka sida taabuuga oo kale, waxa kamid ah qaadkii oo kale, waxa kamid ah shiishadii, qamrigii iyo sidoo kale daawooyinkan ay dhaqaatiirtu qoraan oo iyana markay si xad dhaaf ah loo isticmaalo noqdo maanduuriyaal ayaga naftirkooda. kiniiniyaasha kamid dadka ay Soomaalidu badan iska isticmaalaan sida traamadoolkaas oo kale dadka iska isticmaalaan dhamaantood waxay kamid yihiin marka maanduuriyaal ay kamid yihiin. runtii marka maanduuri markii la yiraahdana qatartiisu waa qatar hadba heer ay kala gaarsiisan tahay. heerka caafimaadka soo yahay runtijaadka wuxuu kamid waxyaabaha Soomaaliya sida saaidka looga isticmaalo. waxa kamid ah tubaakada, taabuuga oo yana sanadahan dambe aad ugu soo badahayso Soomaaliya. sidoo kale waxa jiro maanduuriyaal fara badan oo iyana la isticmaalo walow dadka qaar boqolkiiba in yar la isku day in la xakameeyo haddana ay macquul tahay in la xakameeyo oo gebi ahaanba markii loo fiiro qofkan caafimaad ahaan uma fiicno oo caafimaadkiisa cudurro fara badan ay ku keenaan. sidoo kale bulsho ahaan kuma fiicno qofkii muqaadaraadka cunay lama dhaqmi karo dadkan kale ee aanan isticmaalin waxyaabaha muqaadaraadka ah. sababtoo qofkii muqaadaraad isticmaalay waa qof yacni caqligiisa ay wax ku jiraan. sababtoo ah qofka markuu daroogaysmo ama uu maskaxdiisa isbedesho dadkii qofkii maskaxdiisa caadiga ahayd waxyaabo ay caadi u arkayso qofkan fiyow ayaa asagana wax cun u arkay. qofkan muqayilayo waxyaabo wax fiican la ah ayaa dadkii aan isticmaalin caadiga nadiifka ah wax xun ayagoo ay la arkayo asiga wax fiican leeyahay. waxyaabo kale kamid in qofku nadaafad ahaan jirkiisii oo san daryeelin. nadaafaduna kulli caafimaadka qayb ay ka tahay, diintana qayb ay ka tahay. rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam an-nadaafatu nisfu min al-iimaan, nadaafadu waa iimaanka barkiis. marka qofka markuu nadaafad ahaan xitaa uu isku daryeeli waayo oo qof wasaqaysan noqdo jirkiisa ka warqabi waayo waxay ku sabab marka jaadkii qofkan inuu yacni miisaankiisu oo hoos u dhaco, qof caata ah uu noqdo, qof wasaq badan uu noqdo, qof yacni cidiisa familigiisa aan ka warqabin noqdo, qof dhaqaale ahaan hoos ugu dhiga qaadka uu noqdo. runtii marka waxa uu leeyahay faa'iido darrooyin aad u fara badan ayuu leeyahay oo halkan lagu soo koobi karin. marka caafimaad ahaan uma fiicno cudurro fara badan ayuu sababaya. bulsho ahaan uma fiicno dadkiiba lama dhaqmi karo qofkii maskaxdiisa aysan taam ahayn dadkii lama dhaqmi karo. sidoo kale waxaa kamid waxyaabaha maanka duuriya sida kiniiniyaashan Soomaalidu isticmaalaan. waxa u badan hadda ciyaalkan oo biluuniga dheelo kale aad u isticmaalaan tramadol kiniga la yiraahdo. anugu markuu qofkan dhalinyarada markuu garoonka si aadayba in hal xabo ama laba xabo oo sii qaato waxay ku sababaysaa marka in qofkani dareenkiisu
oo kaamil noqon waayo oo wax ku dhacayo oo dareemi waayo ayuu u isticmaalaan badanaa dadkan garooma ka galayo. sidoo kale qaadka naftigiisu markuu qofka uu marqaamo oo saaxadii fiyoobida uu ka baxo qof marqaamsan oo sakraansan uu noqdo dareenkiisu kaamil ma ahan, awood jirkiisu ma lahan, qof iska dhacayo awood aan lahayn waayo qof yacni marka faa'iido darrooyin aad u fara badan ayuu leeyahay. sidoo kale klinigan daraamodoolkana isane waa kaniini Soomaalida iska isticmaasho iska fududeysato laakiin khataro fara badan oo caafimaad leh qofkii markuu yacni daawo oo dhakhtar uusan u qorin oo isticmaalin kulli waa wax yacni Soomaalida sharci u tahay in qofku intuu xarun caafimaad iska tago farmasho kale iska tago oo kaniini iska soo qaato san wax dhakhtar la tashan waxba aan u qorin iska qaato yani maskaxdiisa uu ka soo garto saas oo yacni marka runtii waan jecelahay in laga bixi doono hadii la yiraahdo mustaqbalka dhow dhaqaatiir fiican ay soo bixi doonto. runtii marka muqaadaraadka jaadkaas iyo aad bay u fara badan yihiin. waxaan rabnaa marka waxaa ka mid a waxyaaba aadka ugu soo badanayo Soomaalida oo bulshadii ay wada isticmaalayaan rag iyo dumarba. sidoo kale waxaa ka mid a tubaakada taabuuda la yiraahdo. tubaakadan taabuuda ah waxay leedahay faa'iido darrooyin aad u fara badan, cudurro fara badan ay qofkan ku sababtaa oo ilaa 6 cudur ilaa kasii badan ay ku sababtaa. marka qofka isticmaalayo tubaakadan waxa uu asiga la tahay in yacni wax iska fudud oo iska sahlan ayuu u isticmaalaa. laakiinse markii ay cudur ahaan ku sababto ayuu ogaanayaa in waxaani wax khatar ay ahaayeen. marka waxaad moodaa bulshadu inaysan yacni xagga wacyigelinta ay ka jiifto, aysan ku baraarugsanayn waxyaabahan maandooriyaasha ay isticmaalayaan khataraha ay leeyihiin, aysan ku baraarugsanayn guud ahaan Soomaalidu. runtii markii la tubaakadan taabuuda waxaa lagu sameeyaa sida waxaa lagu sameeyaa wadanka la yiraahdo Hindiya. waxaa loo yaqaanaa tubaakadaas marka lagu sameeyo wadanka Hindiya taabuuda la yiraahdo meesha ugu badan ee dunida laga isticmaalo waa Hindiya. runtii Hindiya cilmi baaris la sameeyay waxay sheegaysaa dadka Hindiya in 40 kiis daqiiqo ama 40 kiis kambe ay u geeriyoodaan dad aad u fara badan. marka tubaakadaasi xad intaas leeg ilaa geeri sababi karto markii saayid loo cuno. Hindiya waxay ka mid tahay meelaha lagu sameeyo haddana saayidka looga isticmaalo. haddaba taabuuda Soomaaliya laga isticmaalo waxay ka kooban tahay waxyaabooyin la isku daray sida dadkii waxaa arkaysa xitaa qolofkeeda inay ku qoran tahay in yacni shaygan uu yahay shay aan la isticmaali karin ayaa ku qoran. saas taayadoo la arkaya haddana la sii isticmaalaya oo qofkii iska isticmaalaya. waxaa badanaa bulshada waxaa u badan dhalinyarta u badan. runtii waxay keentaa cudurrooyin aad u fara badan ayay keentaa. waxaa ka mid a kansarka ku dhaco afka. qofka markuu afka saarto tubaakadii maanta kale oo dhowr xabo isticmaalo waxay keeni kartaa inay ku sababto cudurka kansarka ku dhaca afka. sidoo kale waxay keeni kartaa cudurka ku dhaca kansarka ku dhaca dhuunta ay keeni kartaa ku dhacaankeedii wixii uu liqo qofkii waxay keeni kartaa kansarka ku dhaca dhuunta ay keeni kartaa. sidoo kale tubaakadu waxay keeni kartaa caafimaad ahaan kansarka ku dhaco sanbabada. qofkii markuu tubaakadii taabuuda isticmaalo waxay ku keenaysaa inay ku dhaco kansarka ku dhaca qaybta sanbabada inuu ku dhaco. sidoo kale cudurka afraad keeni karto ee kamid ah cudurrada ay keento tubaakada taabuuda waxaa kamid ah kansarka ku dhaco pancreaska ayaa kamid ah in qofkii uu yacni tubaakadii markuu isticmaalo taabuuda ahayd walow ay maandooriyaasha kale sida qaadka oo kale midba uu khataro caafimaad uu leeyahay haddana waxyaabaha khataraha saa'idka ay kamid tahay tubaakada taabuuda. sidoo kale saameynta uu ku yeesho awoodda dhalmada qofka waxay kamid tahay khataraha qofka inuu yacni awoodiisa dhalmada uu saameyn ku yeesho taabuuda. sidoo kale hooyooyinka uurka leh oo umula ciyaal aan waqtigood dhammaan. hooyadii uurka leh inay umusho ciyaal waqtigiisa ay dhammaan waxaa sababi karta taabuuda inay isticmaasho. rag iyo dumarba way isticmaalaan iyagoo wadanka ku sugan ama ka maqan gebi ahaanba way isticmaalaan iyagoo u arkaya haddana inay waxaas yihiin wax yacni iska fudud iska fududeysanaya diin ahaan aan u fiirin inay xaaraam tahay. xadiisu nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam kullu muskirin xaraam. shay kasta oo yacni wax dooriya qofka bedela inuu xaaraam yahay ayadoo marka diin ahaan aan u fiirin inuu shaygan xaaraam yahay
caafimaad ahaan aan u fiirinin inuu yacni cuduradaas aadku faraha badan inuu ku sababi karo bulsho ahaan haddana aysan u fiirin markay isticmaalaan xaalkooda sida uu yahay bulshadii ay ku dhex jiraan sida ay keliya ayagoo u fiirin ama xitaa qaarkood laga yaaba ayagoo intaasoo dhan og in haddana isticmaalaan. marka waxay ka mid tahay waxyaabaha guud ahaan kusoo badanaya wadankeena. waxaana jecelnaha in wacyigelino fara badan la sameeyo oo looga hortagayo muqaadaraadkaas maanka dooriya. runtii markii la yidhaahdo muqaadaraadka aad u fara badan sida jaadkaas iyo tubaakadaas iyo qamriga oo kale iyana waxaad arkaysaa hadda guud ahaan markaan magaaladan oo kale joogno waxaa jiri jirta waa qamriga uu qaali yahay oo san qof badan aysan gadan karin. hadda waxaa laga yaabaa inuu jaadka uu kasoo eg dhawaado qamrigii ay dadka iska isticmaalayaan ciyaalka xaafadaha intay looqod iska galaan iska isticmaalayaan habeenkoo dhan iska soo jeedayaan. marka waxyaabahaas waxay kamid yihiin marka qofka caafimaadkiisa waxyaabaha dhibaatooyinka ku keeni kara ay kamid yihiin oo caafimaad ahaan uma fiicno diiniyan ahaan uma fiicno la dhaqanka bulshadana kuma fiicno qofka waxyaabaha cunay asagoo qofkani marka maadaama qofkani uu yahay uu rabo qof inuu yacni mustaqbalkiisa hagaajisto dunidiisan uu horumar ka gaaro waxaa marka laga maarmaan u ah inuu yacni iska daayo waxyaabahaas oo isticmaalay haddii uu isticmaalo haddii uusan isticmaalinna uusan iska ilaaliyo inuu isticmaalkooda uu u dhowaado. runtii waxyaabaha sababaha keeni karta qofkan inuu maandoori isticmaalo waxaa kamid ah inuu asxaabtii isticmaalaysay oo waqtigiisa qeyb kamid a la qaato. marka qofkan asxaabtii isticmaalaysa la qaato shaydaana ku xiriiro qofkii isticmaalayayna waa ku xiriiriyaa. shaydaankuna sidiisaba waxyaabaha xumaanta ah ayuu qofka u qurxiyaa wuxuu uga dhigaa waxyaaba fiican. sidaa darteed markii ay naftaadan shaydaan saaxiib la tahay shaydaanka markuu u qurxiyo waxyaabihii xumaanta qofkan sida muqaadaraadka oo kale markuu qofka u qurxiyo waxay keenaysaa marka in qofka uu ku dhaco wixii si fududna uu ku qaato. laakiinse markuu qofka iska xakameeyo dadka isticmaalaya oo iska xakameeyo waqti siintooda waxay kor u dhigaysaa inuu iska ilaaliyo waxyaabihii maanka doorinaya. marka waxyaabahan maanka dooriyo waxyaaba cudurro aad u fara badan ayay keenaan. waxaa la sheegaa takliifaadka ku baxay macnaa sida looga hortago kale in yacni ay gaarayaan dunida 120 bilyan inay gaarayaan yacni hay-adaadka ama ku shaqo leh inay ka hortagaan qarash 120 bilyan ah inay ka galaan ugu yaraan yacni inay ka hortagitaankooda. sidoo kale baa mushtarka inuu yacni inta la qabto dadku ay dowladaha kale ka hortagaan hay-adaha ku shaqala la dagaalankooda ay ka hortagaan 8% in yacni 8% camal ay yihiin inta kale aanan la qabanin oo si dhuumaaleysi ah lagu isticmaalo. runtii marka waa wax yacni aad khatar aad u weyn leh in yacni la isticmaalo. qofka marka uu daawooyinkaas isticmaalo sida qaadkaas oo kale waxa 40% dadka qaadka isticmaalo waxa ku abuurma shaki in qofkan uu shakiyo. runtii marka waxyaabahaasi waa waxyaabo aad u khatar aad u fara badan oo caafimaad keeni kara dhankii diintan aan ku wanaagsaneyn. marka runtii waxaan jeclahay in bulshada Soomaaliyeed iyo dhageyda ahaanba ay ka waantoobi doonto khatarahaas aadka u weyn ee caafimaad ee u sababi karo waxyaabahaas maanka doori. waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyo Beerlula barnaamijka caafimaadka ayaad maqlaysaan. barnaamijka weli waxaa inooga harsan markana waxaad ku soo dhawaataan heeska dhaxtaalka barnaamijka. bishariyo salan baaxad weyno ibnaha ka timido afku sama ku baaqi adan ku bandhigaya bariyo bishariyo
salan baaxad weyno dibnaha ka timido afku sama ku baaqi adan ku bandhigaya وحاسب وقادلي وسكينا بدقادي وبي بلد لو بقاتاي بالعدي دقيقو بهوليو بي أوقا وحاسب وقادلي وسكينا بدقادي وبي بلد لو بقاتاي هدي أنا بيبيرينهم بياشون لبقصدو برتي أي خبوني وبلتي بربارتو بلد وينو وحاتاي قولهي برواقدا هدي أنا بيبيرينهم بياشون لبقصدو برتي أي خبوني قبلتي بربارتو بلد وينو وحاتاي قولهي برواقدا وبيجي بتاعه عنك سمك وبيري أذن كوكو بكسونا بيري هيرانو بري يا قلبي اللو وبيجي بتاعه عنك سمك وبيري أذن كوكو بكسونا Somalo bogaba kutabaye halkilaygu barbasho kama baaqan karaye obay bilad sida ayaa tahay bartami somalo bogaba kutabaye halkilaygu barbasho baaqan karaye obay bilad sida ayaa tahay haddii aanan baydbaydhino ombayaashoon la begsado bartay ay haboonay gobolkii barbaarto balad weyno waxaa tahay golahiin barwaaqada haddii aanan baydbaydhino ombayaashoon la begsado bartay ay haboonay gobolkii barbaarto balad weyno waxaa tahay
intaasi aynu ku dhaafno heeskaasi oo ku luuqeynayay fanaanka codka baxsan Asadere. heeskaasi waxa uu dhaxtaal u ahaa barnaamijka caafimaadka ee raadiyo Beerlula. waayahay qaabkee loogu hortagi karaa in la joojiyo maandooriyaha? waa mahadsantahay. maandooriyaasha qaabka looga hortagi karo horta waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood. dad waa dad yacni ka hortegayo inay ku biiraan dadka isticmaalo maandooriyaasha ama ay qayb ka noqdaan. runtii dadkaas waxaan yacni ay u hortagi karaan inay ka dheeraadaan dadka isticmaalo maandooriyaasha, aysan waqti badan aysan la qaadan si ay yacni ugu talaalin ama aysan uga baranin sida loo isticmaalo, iyagoo aysan ugu qurxin. sidaa darteed ayna saas aysan ku baran. sidoo kale dadka isticmaali jiray siyaabaha ay ugu tegi karaan waxaa kamid ah yacni waxaa jiro qaar oo maandooriyaasha qaar haddii laga tago qofkan jirkiisu uu isbedelayno kale sida jaadka oo kale. waxyaabaha haddii laga tago qofkan jirkiisu wax isbedel saas ka muuqama oo waa si sahlan la isaga dhaafi karaa. walow dadku qaarkood isticmaal ay qiil iyo wax u ka keensan yiraahdeen cudurro fara badan ay ka imaado sida waa saxaro waayay waxyaabo la mid inay sheegaan dadka isticmaalo ayagoo qiil ka dhiganayo, laakiin sida waadix ah qofkii jaadkaas oo kale isticmaalay waxyaabo la midka ah in yacni marka uu ka tago jirkiisa iyo aysan yacni inuu wax faa'iido ah inuu helo maahan wax dambe qasaare ah inuusan ku imaanin. marka dadkaas oo kale waxay uga faa'iideysan karaan dadka inay iska jaraan rabo waxyaabaha maanka duuriya, inay horta Ilaahay tala saartaan. bilaha soonka oo kale ay yacni uga faa'iideystaan markii bil dhan ay moogaanadaan wixii yacni muqaadaraadka ahaa ay maalinta dhan ay soomiyiin habeenkiina ay iska daayaan waxyaabo kale ku mashquulaan. waxay u saamaxaysaa qofka markuu bil dhan oo saas ahaado inuu yacni si tartiib ula qabsado, sidaas darteed oo iska dhaafo. laakiinse waxaa arkaysaa dadkii oo ayagoo maanta dhan oo soonaay in markii kooyda markii xilliga afurka la gaaro bacda jaadka uu sii qaato oo afurkii markuu afuro oo sii ag dhigto. waxyaabahan ayagana qofku maanta dhan baahnaay haddana jaad hore ka sii cunay waxyaabaha caafimaad darrada degdega ku keena kamid tahay qofka inuu yacni markuu jaadka cunayo in qofku cunto saa'ida ma qaadan karo. markuu hadkiisa marqaanka u farabato cuntadiisa yaraanayso. marka aan soo gaabinayo waxaan leeyahay waxyaaba lagu hortagi karo wax ka mid bilaha soonka ee fadliga badan looga faa'iideysto, ilaahayna la bari inuu qofkani uu yacni ka leexiyo wadadan qaldan ee wadada saxda oo tuso. qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa radio Beerlula uga waramay saameynta uu leeyahay maandooriyaha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada degan beledweyne ama bulshada ku nool gobolka. markii loo fiiriyo daawooyinka maandooriyaha dhalinyarada isticmaalayaan waa riski ama waa saameyn dhibintiisa la-eg oo qofka dhalinyarada ka dhigaya kheyr mas-uul noloshiisana galaafan kara. marka markastana dhalinyarada waxaan ku waanin lahaa inay wax bartaan, diinta bartaan, maadiga bartaan, cilmiga noloshooda anfacaya bartaan, oo ay iska daayaan waxyaabaha noloshooda u keenaya dhibaatada. leannahu qof dhan waxaa arkaysaa mas-uul ah oo meel ku nool hooyaaba kasoo agtoosaya deetana isticmaalaya maandooriya asiga naftiisa ka weyn ama xadkiisa inta dhaafay meelaha ku dhacdhaya arkaysaa. qof waliba uu dhashay asoo nadiif uu dhashay dhibaato kumuusan dhalan. marka dadka curyaanta la dhahaya ama dhagaha ama maqalkay laayihiin waxaa ka xun kuwa isticmaalaya maandooriyaha. waxaan ku waanin lahaa dhalinyarada ama dadka da-da ah amaba dadka iibiya maandooriyaha inay joojiyaan amaba ay ka waantoobaan. magacayguna waa Aadan Yuusuf Xuseen. waad mahadsantihiin Beerlula. run ahaantii Cabdiqaadir waa mahadsan tahay. maandooriyaha waa mataqaanaa waa dhib badan yahay. marka maandooriyaha waa waxyaabo aada u dhib badan oo caafimaadkaada waxyeeleynayeen. mataqaanaa jir ahaantaada xitaa waa eber ayaad noqonaysaa, jirkaada ugu baaba'aya. marka ma fiicno dhalinyarada hadda isticmaasho maandooriyaha. waxaan dhihi lahay waxaa isticmaalaysaan wax kale ku bedesha oo mataqaanaa nafsad ahaantiin idin roon oon maandooriye ahayn. marka dhalinyarada saasaa dhihi lahaa inay iska dhaafaan maandooriyaha. guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxaa iga eg barnaamijkii caafimaadka ee raadiyo Beerlula. waxaa barnaamijka idila socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Nadaara, waxaana farsameynayay Maxamed Yuusuf Cabdullaahi. tan intaan kaga kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay sidaa ay nabadgelyo. ururka caafimaadka caruuriyo